saabta ku soo dhawaada warka ugu dambeeyay oo aanu gabi ahaanba ku eegi doono dagaalka Iran iyo waxyaabaha la xiriira kaas oo imika u muuqda mid faraha ka sii baxaya waxaana ku jira xiritaanka xuutiyiinta ee Baabul Mandab oo durba dhaqan galay walow ay taasi khusayso Sacuudiga oo qura aanu ku balaawan Israa'iil Israa'iil ayaa waxay sheegeen in Donald Trump uu diyaarinayo inuu ballaariyo weerarada uu ku hayo dalka Iran sida uu qoray warqaadka Jerusalem Post oo soo xiganaya laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka Israa'iil qiimaynta Israa'iil sameeyeen ayaa waxa ku jirta in aad loo bartilmaameedsan doono kaabayaasha istiraatiijiga ah ee Iran iyo xitaa madaxda sare ee dalka Iran taasoo dabcan dib u soo celin karta in Tehran ay weeraro argudasho ku qaado Israa'iil wasiirka koowaad ee nidaamka Tel Aviv Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay inuu 6 saacadood wada xaajood iyo tashi kula jiray qaar ka tirsan wasiirada xukuumaddiisa iyo madax sare oo ka tirsan gaashaandhigga nidaamka Tel Aviv si xaaladda ay isula qiimeeyaan waxaa la sheegay inuu deeto ka baxay shirki kadibna uu wacay wasiir dabadeedka Mareykanka Marco Rubio oo ah nin si weyn u taageera nidaamka Sahyuuniga sida laga soo xigtay saraakiil isqarisay oo warramay Jerusalem Post dhinaca kale xildhibaan lagu tilmaamo mid xaq jir ah oo ka tirsan baarlamaanka Iran ayaa ku eedeeyay guddoonka baarlamaanka dalkaasi Mohammad Baqir Ghalibaf inuu si dadban Mareykanka ugu taageerayo inaan loo aarin hogaamiye ruuxiga ah ee Iran Ali Khamenei isla markaana uu gacan ka geysanayo in sida uu yiri la cuuriyaamiyo dawladda dalkaasi loona gogol xaaro afgambi aan dhig ku daadan ninkan oo lagu magacaabo Hamid Razai ayaa tusaale u soo qaatay heshiiska isfahamka ahaa ee ay Iran la gashay Washington kaasoo imika u muuqda inuu burburay waxaanu ku tilmaamay mid aan la jaan qaadi karin qorshaha ay tahay in lagaga aarsado Mareykanka isagoo Ghalibaf ku eedeeyay inuu isku dayayo inuu heshiiskan ku soo dhuunto isaga oo ku gambanaya fanhadal diimeed iyo mid ideolojiyadeed sida uu yiri arsigu waa mid aan asaasiyan la jaan qaadi karin isfahamkan maxaa yeelay waxa uu saxiixay wax hor istaagaya in la aarsado ayuu Razai u sheegay helinka YouTube ee loo yaqaano Hokmran waxa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mendy Palace Restaurant oo lagu soo kordhiyay adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha aroosyada ducooyinka sanad guurada shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah meesha ay ku taalo shaashada ka milicso dhanka kale Iran ayaa Bulgaria uga digtay inay Mareykanka saldhig ka siiso dalkeeda kadibna lagaga soo duulo dalkeeda aan tilaabadan timid kadib markii ay Sofia ogolaatay ilaa 8 yuuradood oo ah nooca shidaalka hawada ku bixiya oo la sheegay inay ka dageen saldhig ciraad ku yaala dalkaasi Bulgaria afeen u hadlay wasaaradda dibadeedka dalkaasi Iran Ismail Baghai ayaa isna Bulgaria ku eedeeyay inay si firfircoon Mareykanka ugu fududeynayso wax uu ku sheegay tuulaanka iyo dambiyada dagaal ee uu ku hayo dalkeeda aanu ku booriyay Bulgaria in aanay arinta gacan ka geysanin digniinta Iran ayaana ku soo beegmaysa xilli wasiirka koowaad ee cusub ee dalkaasi Britain Andy Burnham uu ogolaaday in Mareykanku saldhigyadiisa uga duulaan dalkaasi Iran xilli ay Washington qorsheynayso ballaarinta howlgalkeeda military ee ka dhanka ah dalka Iran waxaana go'aanka cusub ee Burnham kamid ah in Mareykanku ay si isticmaalaan saldhigyada military ee ku kala yaala Diego Garcia oo dhacda bartamaha badweynta Hindiya iyo saldhigga kale ay leeyihiin ciidanka cirka dalkaasi Ingiriiska ee loo yaqaano RAF Fairford oo ku yaala Gloucestershire UK iyagoo kaliya u adeegsanaya wax uu ku sheegay duqeymo difaac ah walow aan la garanaynin sababta duqeyn sidaas oo kale ah difaac loogu tilmaami karo in hawshu sii xoogaysanaysana waxa u daliil ah dawladda loo yaqaano B1 Lancer ay leeyihiin ciidamada cirka dalkaasi Mareykanka isla markaana fuulisa duqeymaha istiraatiijiga ah ayaa ka duushay saldhigga RAF Fairford ee dalkaasi Ingiriiska kadib markii Donald Trump uu Iran uga hanjabay inuu duqeyn doono daafacaadka u adag ee buuraha ku dhex yaala ee loo yaqaano Pickaxe Mountain Facility oo sidoo kale lagu naanayso magaalooyinka aasan ee gantaalaha halkaasoo loo badinayo inay yihiin meelaha ay ku jiraan gantaalaha ay Iran adeegsato oo lagu xareeyay tusmooyin buurahaasi ku hoos yaala dhan kale kooxda Iran ologala ah ee xuutiyiinta ayaa si rasmi u dhaqan gelisay go'doominta dekedaha dalka Saudi Arabia waxaana digniin u dirtay markab kasta oo ku xirta dekedaha dalkaasi xitaa haddaanu ahayn Sacuudiyaan waxaana taas dabcan durba saameyn doontaa maraakiibta ka taga Soomaaliya sida kuwa xoolaha nool sida waxaana sababta darteed Baabul Mandab uga weecday ilaa 5 markab kuwaas ay ku jiraan qaar sida saliidda Sacuudiga qaarkoodna ay durba u laaxdeen dhinaca helinka Suez sida uu sheegay helinka CBS ee dalkaasi Mareykanka oo adeegsanaya xogaha lagu raadiyo maraakiibta badda maraya maraakiibtan ayaa waxa ku jira ugu yaraan 4 markab oo ah kuwa booyadaha ah iyo 1 markab oo ah kuwa xamuulka ah
waxaana ka mid ah 2 markab oo ah kuwa qaada saliidda qayriin oo ka soo shiraacday dekedaha Sacuudiga una socday dalalka Shiinaha iyo Pakistan. hal markab oo isna ay saliid ku rarnayd amaba la sheegay inuu siday kiimiko oo ka yimid Sacuudiga una socday Cumaan ayaa isna ku jira. waxaa sidoo kale ku jira markab kuwa gawaarida qaada ah laakiin xilligan marnaa oo aan waxba sidin oo Sacuudiga uga socday dalka Sri Lanka iyo mid kale oo marnaa oo ah kuwa saliidda qayriin qaada oo ka soo laabtay Myanmar balse ku dhici waayay inuu ka gudbo marinka Bab el-Mandab sida uu sheegay isla CBS. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV. Afiyo kibir